lanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsin production oo alaaba halkan ka daawan jirteen waa 4 bisha January 2020 maalinimo sabti ah qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantayna waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Boosaaso iyo xiisad halkaasi ka taagan waxa lagu diray sargaal ka tirsan maamulka Puntland madaxweyne xaaf oo magacaabay guddi doorasho iyo khilaafkii dawladda federaalka Soomaaliya iyo xaaf oo cirka isku shareeray olole cusub oo ka dhan ah doorashada galmudug oo ka socda magaalada Gaalkacyo goordhowna waxa la soo saari doonaa liiska xildhibaanada cusub ee galmudug waddan ka tirsan al-shabaab oo weerar lagu dilay kadib markii la ogaaday inay miinooyin u aasayaan baabuur xamuul ah Mareykanka oo sabab la yaab leh u dilay Qaasim Suleymaan daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantay oo aad ka daawanaysaan shabakada warbaahinta wadaagsin production fadlan daawada waxa xasuusin iga ah inaadan hilmaamin subscribe isla markaana aad gambaleel ka furatid si aad markaas uga mid noqotid daawadayaasheeda hela warbixin walba oo aan halkan soo galino ku mahadsanid haatana ku soo dhawaada warkii oo fidsan faafayna dheeraada ayaa ka soo baxaya dil xalay kooxaha hubaysan ay ka geysteen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dilkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in loo geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka Puntland oo ku sugnaa bartamaha magaaladaasi marxuumka la dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Ciise Ducaale sida ay warbaahinta wadaagsan u xaqiijiyeen ila deegaanka ah oo lagu kalsoonaan karo wararka ayaa sheegaya in ragga dilka geystay oo ku hubaysanaa bistoolado ay goobta isaga baxsadeen falka kadib sidoo kalena ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo dawlad goboleedka Puntland ayaa gaaray goobta iyagoona baaritaano kooban ka sameeyay halkaasi ma jiro ilaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka magaalada iyo saraakiisha amniga oo la xiriira dhacdadaasi mudooyinkii la soo dhaafay amniga Boosaaso ayaa faraha ka sii baxayay waxaana ka dhacay falal lid ku ah nabadgelyada kuwaas oo u badnaa dilal qorsheysan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xalay magacaabay guddi doorasho cusub maalin kadib markii uu ka soo horjeestay dawladda federaalka qoraal uu soo saaray Xaaf ayuu ku magacaabay guddigan oo ka kooban 11 xubnood waxaana uu ku amray inay soo xaroodaan ugu dambeyn 10 bisha Janaayo Xaaf ayaa sidoo kale guddiga faray in gudoomiye iyo ku-xigeen doortaan ugu dambeyn 12 bisha Janaayo magacaabistan ayaa timid maalin uu kadib markii Xaaf uu sheegay in isagoo tixgelinaya dastuurka dalka iyo kan u gaarka ah dawlad goboleedka galmudug oo dib ula laabtay awoodii uu horay ugu wareejiyay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kalena Xaaf ayaa amray golihiisa wasiirada iyo dhammaan howlwadeenada kale ee maamulku inay ka shaqo bilaabaan xafiisyadooda ugu dambeyn 15 bisha Janaayo 2020 guddiga maamul u dhisida galmudug ayaa shalay aqbalay 20 xildhibaan ay soo gudbisay ahlu sunna taasoo u muuqatay inay ugu dambeyn xalin doonto khilaafkii ka dhaxeeyay dawladda iyo ahlu sunna balse la talaabooyinka uu qaaday Xaaf ayaa mugdi cusub gelin kara xaaladda galmudug isla xaaladda cakiran ee galmudug ayaan ku jirnaa daawadayaal magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ka bilowday olole xooggan oo lid ku ah hanaanka geedi socodka doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxtooyada galmudug ee ka socota magaalada Dhuusamareeb iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu magaalada Dhuusamareeb ka wado kulamo lagu dardargelinayo dhismaha maamulka cusub ayaa waxa si lama filaan ah u mucaaraday madaxweynaha maamulka oo waqtigiisu sii dhamaanayo ee galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha oo khamiistii gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa bayaan uu habeen hore soo saaray wuxuu ku sheegay inuu dib uga soo laabtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya wakiilashadii uu u wakiishay inay soo dhisaan maamul cusub madaxweynaha galmudug oo mudooyinkii ugu dambeeyay uu heshiis isfaham ah kala dhaxeeyay dawladda federaalka ayaa u muuqda mid gabi ahaanba saluugsan dhabaha ay guddiga farsamada u marayaan dhismaha galmudug loo dhan yahay madaxweynaha ayaa golaha wasiirada galmudug iyo howlwadeenada ku wargeliyay inay dib u howlgalaan xurumahooda laga bilaabo 15 bisha January madaxweynaha ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka ee beelaha galmudug iyo saamilada siyaasaddu inay ka soo qayb galaan 25 bishan shir looga hadlayo ayaha galmudug iyo sidii talo midaysan loogu soo dhisi lahaa galmudug bad qabta sidoo kalena madaxweyne Xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo ka wada kulamo uu dadka kaga tashan gelinayo shirka uu doonayo inuu ku qabsamo magaalada Gaalkacyo toddobaadyada soo socda dawladda federaalka Soomaaliya oo garowsan in hadalka madaxweyne Xaaf uu caqabad ku noqon karo dardargelinta dhismaha galmudug loo dhan yahay ayaan wax war ah ka soo saareen dhaqdhaqaaqa uu ka bilaabay magaalada Gaalkacyo inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dawladdu qorsheynayso sidii ay u fashilin lahayd shirka uu ku baaqay Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha galmudug war kale oo aan la xaqiijin waxay sheegeen in dawladdu ay wado hadallo la bilowday madaxweynaha galmudug dhanka kalena dadka reer galmudug ayaa aad u hadalhaya hadalka ka soo yeeray madaxweyne Xaaf iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee hormuudka u yahay kana socda xarunta galmudug ee magaalada Gaalkacyo
doorashada galmudug ayaa waxaa hareeyay khilaaf xoogan oo aad arki doonto sida uu dib ugu dhac ugu keeni karo dadaalada uu ujeedkoodu yahay in lagu soo dhiso maamul cusub oo dadka reer galmudug ay leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee, khilaaf ka hareeyay doorashada galmudug ayaa noqday mid soo ifbaxa mar kasta oo mid laga gudbo. dhanka kalena guddiga farsamada ee maamul dhisida galmudug ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo liiska 69 xildhibaan ee ka haray baarlamaanka maamulkaasi. guddigan ayaa horey u shaaciyay liiska 20 xildhibaan oo ahlu sunna wal jamaaca laga siiyay baarlamaanka cusub kadib markii lagu heshiiyay tabashada beelaha qaar. haddii lagu dhawaaqo xildhibaanada haray ayaa waxa ay gudo geli doonaan howlaha doorashada, gaar ahaan guddoonka iyo midda madaxweynaha intaba. sidoo kalena arrimahan ayaa ku soo aadaya iyo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu ka hor yimid dadaalada ay dowladdu ka wado maamulkaasi. Xaaf ayaa ku dhawaaqay guddi cusub oo doorasho kaas oo ka kooban ilaa 11 xubnood kana shaqeyn doona arrimaha doorashada. tani ayaa horseedaysa xiisad hor leh iyo inay saameyso dadaalada loogu jiro maamul loo dhan yahay oo ay yeeshaan gobolada galmudug iyo mudug ee bartamaha dalka. xaaladda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa muddo dheer ku jirta isjiid siyaasadeed kaas oo aan weli dhinacna u dhicin, balse dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan wada dadaaladii ugu dambeeyay ee dhismaha maamulkaasi. saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in weerar qorshaysan oo la fuliyay lagu dilay 30 ka mid ah dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa gobolka Shabeellada Hoose. weerarkan oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan guutada commandos-ka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab, gaar ahaan guutada 16aad, ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Balow Eylo ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab. taliyaha guutada 16aad ee Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida uu sheegay in howlgalku ahaa mid qorshaysan, isla markaana xubnaha shabaabka ee lala beegsada ay diyaarinayeen gaadiid qaraxyo oo ay doonayeen inay ku soo weeraraan magaalada Muqdisho. taliyaha ayaa intaas ku daray in gaadiidka qaraxyada lagu diyaarinayay ay ahaayeen nooca xamuulka ah, isla markaana ay dhinaca cirka ka duqeeyeen, taasi oo sida uu sheegay sahashay iyadoo cidna uu khasaare ku soo gaarin in la burburiyo. waxaa howlgalka lagu dilay ugu yaraan 30 maleeshiya oo shabaab ah oo ay ku jiraan saraakiil sare, ayuu Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin sheegay. howlgalkani ayaa qayb ka ah howlgallo ay ciidanka commandos-ka xoogga dalka ee Danab toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose. maalmo ka hor ayaa guutada 16aad waxay Al-Shabaab kala wareegtay 7 tuulo oo ay ka tirsan Shabeellada Hoose, iyadoo taliya Ismaaciil oo ballan qaaday inay sii wadayaan howlgallada inta lagu soo afjarayo jiritaanka kooxda Al-Shabaab siduu hadalka u dhigay. ugu dambeynna wararka bariga dhexe iyo xaaladda bariga dhexe oo toddobaadyadaan iska cakirnayd kadib markii ciidamada Mareykanku ay duqeyn cirka ah ku dileen jenaraal sare oo ka tirsan dalka Iiraan. jenaraalkan ayaa lagu magacaabaa Qaasim Sulaymaani iyo nin kale oo hogaaminayay koox ka tirsan dalka Ciraaq ayaa lagu dilay duqeyntaasi. iyadoo laga cabsi qabo dagaalka qarxa bariga dhexe ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in sababta loo dilay jenaraalkii sare ee Iiraan ee Qaasim Sulaymaan ay tahay in laga hortago dagaal ka dhaca bariga dhexe. waxaan ficilkan u qaadnay inaan joojino dagaal, uma aanan qaadin inaan bilowno dagaal, ayuu yiri Trump oo wax laga weydiiyay cabsida laga qabo dagaalka qarxa bariga dhexe. Trump wuxuu sheegay in Sulaymaani uu qorsheynayo weerar xun oo ka dhan ah shaqaalaha Mareykanka ee bariga dhexe ayna ku qasbanaayeen inay ka hortagaan. jenaraal Qaasim Sulaymaani waxa uu dilay ama uu si xun u dhaawacay kumanaan Mareykan ah, wuxuuna hadda qorsheynayay inuu kuwa hor leh dilo, balse waanu ka qabanay, ayuu yiri madaxweynaha Donald Trump. wuxuu sidoo kale si toos ah ama aan toos ahayn uga mas'uul ahaa dhimashada malaayiin qof oo ay ku jiraan tiro badan oo banaanbaxyaal ah oo dhawaan lagu dilay dalka Iiraan, ayuu yiri Trump. muddadii argagixisanimo ee Sulaymaani waa ay dhamaatay, ayuu yiri Trump. madaxweyne Donald Trump wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanku uusan doonayn in taliska Iiraan la bedelo. ma doonayno in isbedel taliska ku sameeyno Iiraan, ayuu yiri. Iiraan ayaa ku hanjabtay aargudasho daran, waxaana ay sheegtay in Mareykanku uu qaadi doono mas'uuliyadda cawaaqibka ka dhasha dilka jenaraal Qaasim Sulaymaani. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Al-Khamenei ayaa ku hanjabay aargudasho daran oo ka dhan ah dambiilayaasha gacmahooda dhiigga la galay, isagoo wacad ku maray in shaqadiisa iyo wadadii uu hayay aan la joojin doonin. dhinaca kalena hogaamiyaha kooxda Tehran ay taageertay ee dalka Lubnaan ee Xisbullah ayaa maanta ku baaqay in loo aargudayo dilka Qaasim Sulaymaani. in la falayo ciqaabta ku habboon dambiilayaashan wax khaarijiyay waxay noqon doontaa mas'uuliyadda dhammaan dagaalyahanada wax iska caabinta ee caalamka, ayuu bayaan uu soo saaray yiri Xasan Nasrullah. daawadayaal, intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena subaxnimo ee warbaahinta Wadaagsin Production. inta aan warkaan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxa aydun idinkaga tagaynaa anagoo isku duwan bahda Wadaagsin Production. sidaas iyo nabadgelyo.